waxaa mar kale dib loo doortay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni. Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Koonfur Afrika qaar ka mid ah ayaa soo dhaweeyay dib u doorashada madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Alxamdulillaah rabbil aalamiin. Magacaygu waa Suldaan Ibraahim Maxamed Cali. Waxaan ku dhahay Suldaan Qaxwe. Aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay doorashada maanta Puntland ka dhacday oo waliba ilaa intaas oo qofood tartan galeen ilaa wareeg koowaad wareeg labaad wax wali hore loo maqlay maaha arrin aad u fiican oo gobolada kale aan ku sugayno iyo meelaha kale inay saa ugu dhacdo marka doorasho wuxuu dhacday si rasmi ah si xalaal ah oo waliba waxay u dhacday si xalaal ah oo waliba tartan weyn oo waliba listiito ay ka dhacday Siciid Cabdullaahi Denina waa aadan ugu hambalyeynayna marka waxaan leenahay Puntland siyaasadda hore wax ka bedel dhismihii Puntland sida u waday si ka daran ka filayna insha Allah TV-ga Shabeellana aad baan u soo dhaweynayaa waana ku mahadsantiin wareysiga aad naga qaadaysiin aragtidayda ku aadan doorashadii maanta hadaa ay weydiisid aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Siciid Cabdullaahi Denina waa soo dhaweynaynaa waa madaxweynaha soo socday 5 sano waxaana ka codsanaynaa in uu policy-ga hore ka bedelo policy soft la yimaado wadankana gaarsiiyo one man one vote aad baan u mahadsantiin TV-ga Shabeelle magacaygu waa Musiiso Cabdullaahi hadaad weydiisay doorashada maanta ka dhacday Puntland waa soo dhaweynayaa sababo badan awgood baan u soo dhaweynayaa oo ay ka mid tahay ammaanka Puntland oo aanu ka warwarsaneen in badan telefishinka Shabeelle ee warbixinta ay weydiisay waa mahadsan yahay waana soo dhaweynayaa inuu dadka ra'yigooda ururiyo magacaygu waa Bileelka Digir haddii aan ka hadlo doorashada maanta dhacday oo Puntland ka dhacday oo ku soo baxay Siciid Maxamed Deni ما شاء الله وتاجرسنا أدي بان تاجرسنا مدحوين أنا وحنا كعدسنا توجدي هرب ملفي عن بن جارسية مدي يلا والله بكذا يسر الله بكذا إنه جارسية بان كعدسنا إننا عبد الرشيد حسين كراش هذه هي TV الشبيلة كونفور أفريقيا جوهانسبرغ.